السلام عليكم. بيلي بقولك كوباية عقدة جوهر الدين مذوبين إذا ارتقي سامينتي سؤال قاعدة إن قولها برلمان كي برازيل أيوة قنصلان إنه ياهي هانتي ودن كله ياهي لأنه أقلان إنه كعيارو ودن كبرازيل دبديسة يدو تاسترتناني سامينتي سكو كوبنان دل كبرازيل دحديسة الدوينها سامين كويا شهر الدقال كسعوني ودن كناجري سبب تيس اللو يستاجي حدي قانو باهنين وهد ودن مدر هريرو ونصو عياركو حوض سيون الله عيارتوينها ساعتي سقو ودن كيس برازيل حديث جوجا نقدم ميد كميد عيارتويدii ugu waaweynaa taariikhdaaba dad badan ay u aqoonsan yihiin ciyaartooygii ugu wanaagsan ee kubadda cagta taabta heer xataa bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda oo caan ka noqday iyadoo laga soo wariyay sheekooyin qariib ah oo la mid ah kuwa super heroes-ka aflaamta ku jira waa kuma Pele Edson Arantes Dona Saminto oo ku magac dheer Pele waxa uu sanadii 1940 ha bishii October 16 ku dhashay magaalada Três Corações ee dhacda koonfur bari ee dalka Brazil isagoo ka dhashay qoys aad faqiir u ah habi waxa uu ciyaartay hore oo ciyaar jiray kooxda Atlético Mineiro hasaate dhaawac soo gaaray xagga jilibka ayaaba ku kalifay inuu ciyaarihiisa kaga fadhiisto waxaanu aabihii kolkii dambe ka shaqayn jiray inuu masaxo nadiifiyana dhakhtar kamid ah dhakhtaradii ku yaalay magaaladoodaas hooyadiina waxa ahayd taariikh ama خادمة هاد بس تقارنان غيرها جوريها وقشقيسة مركو دشيا به وحاول بحي مقع إدسون سوق مقع دراي عالم كوينا يرهن مركن توماس إديسون سوساري لا يركاه أما كورنتادا كده مركب مع المير كورنا لشدي بيله مقالة ده يكون وراين قوس كيسة تراس كراسي وسيسوق قاعد كورنتادو هل كم مقع بيلنا يبحي ناس حابتيسو صوتنا وحها سوق ثقل دنا وجود واقع ترى مقع ولها عيارتوجي وتاجري تري وجول كوجري تري كوحدة فاسكو دجاما بيله أنت الله ياب كله هنا وحويان وكحنا jiray in magaca Pele loogu yeero heer ay gaadhay in arday ay wax wada dhiganayeen oo magaca ugu yeero intuu feero gabi ahaanba laga soo cayriyo madrasadii ama dugsigu dhiganayay iyo raal noqo fadlan dadka cusubta kanalka ku soo bir adiga subscribe taabanay gabalkan furasii ku soo gaaro muuqaal waliba markii soo soo galna videoga kanaalna way gaadhay inta baad sameysay ma sameysay xaq baad u leedahay sida muuqaalka bilow aad u adag Pele isagii qoyskiisu markii uu yaraa waxay gabi ahaanba ka soo guureen magaalada Três Corações waxaana u soo guureen magaalo kale oo la yiraahdo Boro Pele markii uu yaraa reediis waxa uu noqdo duuliyaha diyaaradda hasaatee isagoo maalmaha kamid gurigooda ku sugan ayaaba waxa ku soo agdhacday diyaarad kadibna waa burburtay iyadoo ay ku qurbaxeen dhammaan rakaabkii saaraa iyo pilotkii diyaaradooda kadibna gabi ahaanba Pele fikirkiisii waa u bedelay waxaanu markii dambe u jeestay inuu focus ka saaro kuna dhiirada ciyaarista kubadda cagta kadibna kubadda cagta أبو جعلادة وقت جيسا إن بدنا كمدنا وحوكو بحنجري إيه هرستيد قويسكو كسو جيدنا الصبول نمضو هيركي كمريسي وحو أود واي وحو صوص سيستو كبدو كعيارة سيدا دراديد شربات با وحوكو قولي جري أتقرانيسان Soomaaliya de hadba buush wax kadibna sharabaadkaas ku bada cagta ku bilaabay kuna bartay videoga la garay hadii aad weliga sharabaad ku ciyaartay xaaladda dhaqaaleed ka waliidatay isagii qoyskiisa ay ku noolaayeen balsi in yar bal wixii karaankiisa uga bedelo ayba isagoo aad u daayir baa waxa uu noqday shaahle dadka uu shubaha shaaha kadibna waxa uu hadana noqday baalash dadka kabaha u caseeya heer markii dambana isagii asxaabtiisu ay xataa tuug noqdeen oo marar kamid ay fuul ka xadeen odayro fuul yiminay soo sistan garamada kubadda cagta Pele yaraantiisi waxa uu iskala ciyaari jiray ciyaar xafadkooda asaate markii daadiisu ahayd 12 sano ayaaba jaanisay fursad u heleen oo ciyaara kooxdii ugu weyneed ka dhisnayd magaaladoodii Boro kadibna isagoo maalmaha kamid ah ciyaar iskaga jira ayaaba waxa ishiisu ku dhacday mid kamid ah tababarayaashii daayirta kooxda Santos Pele waxa ku biiray kooxda Santos isagoo daadiisu jirto 15 sano hadii aydan garanayn kooxda Santos waa kooxda ka soo baxay Neymar Jr kadibna xirfadiisa iyo hibada lagu siiyay kubadda cagta waxa ahayd mid aad u weyn heer isagoo 10 bilood oo kaliya kooxda jooga uu noqday ciyaartooygii ugu goolasho badnaa horyaalka Brazil Pele qaab ciyaareedkiisii wanaagsan halka xilli ciyaareed kuma waakeen hasaatee uu sii waday kubaddiisa quruxda badneed isagoo dhaliyay kooxda Santos goolal gaadhaya 643 gool noqdayna ciyaartooygii koox kaliya uu dhaliyay goolasho ugu badan leh ilaa uu ka yimid Lionel Messi rekoorka Pele uu jabiyay isagoo kooxda Barcelona Messi uu dhaliyay
672 gool. Bele sanadii 1974 waxa ku dhawaaqay inuu kubadda cagta ka fariistay. Asaate sanadkii ku xigay 1975 waxa lagu qanciyay inuu u ciyaaro kooxda New York Cosmos ee wadanka Mareykanka. Asaate sanadii 1977 ayuu gabi ahaanba ka fariistay kubadda cagta. Halka xulka Brazil uu saftay markii kubadda isagoo daadiisu tahay 16 sano sanadii 1957 waxa uu dhaliyay xulka Brazil 77 gool isagoo ciyaaray 29 gool. Waana ciyaartoygii ugu goolasha badnaa abid xulka Brazil ilaa Neymar uu ka jabiyay rikoorkiisii koobka adduunka ee soo dhaafnay iyagoo labadooduba hadda haysta min 77 gool. sheeka xariirooyinka cajiibka ee Soomaalidu ka soo warisay Bele Brazil waxa kamid ah in waqtigeeda kamid ah Bele laagnay ma penalty mise wicket gooladaha gool ku jireen oo ahaa walaalkii kadibna uu ku leeyahay walaalkii shoot-kayga yani awoodiisa wad garanaysaa ma iskaga soo bixi goolka walaalkiisa adkay hooyadii aabihii waxa weeyaan tarabunka saray ku dhaadeen intay soo daadageen inaan kayga wad garanaysaa walaalka shoot-kiisa yani waxa weeyaan wax kugu yeelanay iskaga soo bax walaalkiina goolada khatar buu ahaa gabi ahaanba waa u diiday Bele markii walaalkii la kari waayay kubadii soo shoot خطر ولكن كبدي بصوت بسم الله صاحتك بدا وديدي بو هين كروي way soo baxsatay halka labxadii laabtay kaga dhacday بسم الله dhulka boolo mu dhicin halkii walaalkii ku dhintay marka Soomaalidu waxay jirtay Bele walaalkii darbo ayuu ku dilay yani shoot buu ku dilay wow taasina waxay keentay in Bele gabi ahaanba laga mamnuuco inuu kubadda cagta ku laago midigta saahaatay uu iskaga ciyaaro lugtiisa bidix waxaana lagu waxa waa waaliye walaal bidixdaas iskaga ciyaar dadka ay nagu leen ya rabbi ya rasuulallah Soomaalida xataa Bele way sharaabsanay ka waran guulihiisii kubadda cagta Bele waayihiisii kubadda cagta waxa ku guuleystay 30 koob 30 koobna waxa kamid ahaa 3 koob adduun isagoo sanadii 58 62 70 ku kala guuleystay koobabka adduunka waana ciyaartoyga kaliya 3 jeer ku guuleystay koobka adduunka guulihiisa gaarka ah ee waxyaabihii kubadda cagta uu ka qabsadayna runtii waa rima cajiib ah isagoo loo doortay ciyaartoygii kubadda cagta ugu wanaagsanaa qarnigii 20aad iyadoo title-ka inta leegna ay siiyeen xidhiidhka caalamiga ah ee taariikhda iyo tiro koobka kubadda cagta intaas oo kaliya tama waxa uu doortay gudida Olombikada ee dunidu inuu ahaa ciyaartoygii ugu wanaagsanaa qarnigii 20aad hadii la isku daro dabaal feed orod intaba ciyaartoyga qarnigu Bele sidoo kale Bele waa ciyaartoygii kubadda cagta ugu gool dhalinta badnaa iyadoo diiwaan gashay 280 gool isagoo ku kala dhaliyay 1360 ciyaarood oo ah official iyo sidoo kale ciyaar friendly oo ciyaaray kooxo kala duwanaa ee waayihiisa u soo maray hasaatee tirada taasi ah muran badan baa ka taagnaa laakiin si rasmi ah ayaa loogu diiwaan galiyay buuga dhacdooyinka adduunka ee World Guinness Record sanadii 2013 arrimaha aynu soo sheegnay Bele waxa ku kaliftay in uu naftiisa aqoonsay inuu yahay ciyaartoyga ugu wanaagsan ee abid kubadda cagta taabta maalin baa la weydiiyay waa kuma ciyaartoyga ugu wanaagsan ee kubadda cagta soo ciyaara waxa uu Messi Ronaldo jira sidoo kale lama ilaabi karayo wixii ay kubadda cagta ka sameeyeen Ronaldo Zico iyo Ronaldinho ku darso Maradona hase ahaatee anigu waxaan ahay ciyaartoyga ugu wanaagsan ee abid kubadda cagta soo ciyaara ma ogtayse in sanadii 1960 markii Bele uu ku guuleystay koobka adduunka isagoo daadiisu tahay 17 sano oo kaliya in kooxii ugu waaweynaa ee dalalka Yurub sida Inter, Juventus, Manchester United iyo Real Madrid dhammaantood ay u soo bandhigeen inuu kooxooda ku soo biiro ha ugu badnaatay Real Madrid u soo bandhigtay sidoo kale madaxweynaha kooxda Juventus ee Agnelli waxa uu ballan qaaday inuu share ka siin doono shirkadiisa gawaadhida ee Fiat haddii uu ku soo biiro Juventus arinta la yaab kale hadhaysay laakiin waxa ahayd in ra'iisul wasaaraha dalka Brazil ee Jânio Quadros uu soo hordhigay baarlamaanka waddanka Brazil mooshin sheegaya in Bele Brazil loo ogolaan inuu ka baxo waddanka dibadiisa loona aqoonsado inuu yahay hanti kamid ah hantiyaha waddanka Brazil leeyahay taasi oo u dhawaan karin gacmo shisheeye 10 sano ee soo aadan waxaana si aqlabiyad ah ku ansixiyay in Bele kamid yahay hantiyaha waddanka Brazil taasina gabi ahaanba waxa ka hor istaagtay inuu Yurub ka soo ciyaaro 10 sano ee soo aadan
inkastoo Bale ay sagtay lacageedka u tirada badnaa reer Yurub ugu yabo hayeen haddana Bale mar waliba wuxuu ahaa ciyaartooyga ugu dakhliga badnaa waagiisii Bale saameyntiisa kuma koobnayn kaliya waddanka Brazil dhexdiisa hase ahaatee caalamka oo dhan waa laga yaqaanay saameynna waa ku lahaa iyadoo sanadii 1969 Bale iyo kooxdiisa Santos ay u baxeen waddanka Nigeria iyagoo halka ku soo ciyaaray ciyaar saaxiibtinimo arrintii la yaab ka lahayd waxa ahayd in markii Bale iyo kooxdiisa Santos ay soo caga dhigteen waddanka Nigeria in gabi ahaan dagaaladii sokeeye hakad la geliyay muddo 48 saacadood xabad joojin la sameeyay si dhammaan shacabka reer Nigeria ay chance ugu helaan inay balmar daawadaan Bale oo kubad ciyaaraya Bale waligii kuma soo guuleysan Ballon d'Or Bale waligii kuma soo guuleysan abaalmarinta Ballon d'Or ama kubadda dahabka ay bixisay jariirada France Football sababtuna waxa ahayd iyadoo oo aan loo ogolayn inuu ku guuleysto waqtigiisii markii la joogay ciyaartoy aan ahayn European xeerka kaasi ahna waxay bedeshay jariirada France Football sanadii 1995 iyadoo ku soo koobtay ciyaartoyda ka ciyaarta kooxaha Yurub jinsiyadii doonaan baa lahaadaan halka sanadii 2007 ay ka dhigtay jaayisad caalami ah oo ciyaartoy walba oo daafaha caalamka ku nool meesha doonaba ha joogay uu ku guuleysan karayo siyaasadda hore Ballon d'Or u taalayna waxay keentay inaanu Bale ku guuleysan kubadda dahabka waayihiisi xataa hal mar hase ahaatee dhawaanahan bay sameysay jariirada France Football aftidaas oo ahayd bal sanadii 1995 wixii halka ka xigay ciyaartoydii u qalantay kubadda dahabka in bal lasla eego waxaana noqotay in 12 jaayisadood oo jaayisadaha kamid ah ay lahaayeen ciyaartoy aan European ahayn 7 kamidana in farta laga saaro Bale waxa ka dhigtay waagaas waxa sanadii 2015 inuu noqdo ciyaartoygii ugu tirada badnaa ee ku guuleysta abaalmarinta Ballon d'Or saacade ya soo qabtay haddana Lionel Messi oo sanadii 2021 ku guuleystay kubadiisii dahabka ahayd ee toddobaad Bale xagga saadaalinta iyo falaqaynta kubadda cagta aad ugu liita iyadoo kooxaha uu yiraahdo waxaas ku guuleysanaya balaayo ku habsato tusaale ahaan sanadii 1994 koobka adduunka lagu dhigay dalka Mareykanka Bale waxa uu saadaaliyay koobka adduunka ay qaadi doonto waddanka Colombia hase ahaatee Colombia intii koobkii ka hadhay ayaaba ciyaartoygii goolkii ay ku hadhay iska dhaliyay oo loo dhan jiray Andreas Escobar isagana la dilay laguna dilay dalka Colombia sidoo kale sanadii 1998 waxa uu saadaaliyay in waddanka Spanish ku qaadi doono koobka adduunka hase ahaatee Spain group stage-kiiba way ku hadhay halka 2002 uu saadaaliyay in finalkaas ugu iman doonaan wadamada France iyo Argentina hase ahaatee labadii waxay ku hadhay group stage-ki isagoo waddankiisii Brazil uu saadaaliyay in uu ku hadhi doono group stage-ka laakiinse Brazil iyadaaba koobka ku guuleysatay intaasoo ma xataa waxa jirta ciyaartoy badan oo u saadaalay inay noqon doonaan xidiga aad uga caabaxa kubadda cagta meel wanaagsan ka gaar hase ahaatee dhamaantood way ku fashilmeen kubadda cagta sidoo kale xataa waxa uu saadaalay markii uu dhintay Maradona in isaga Maradona ay jannada ku wada ciyaari doonaan kubadda laakiinse waxaan ogeyn inay naarta gali doonaan maadaama ay yihiin gaaro muuqaalkeenu intaas ayuu ku eegay fadlan haddaad ku cusubta kala ku soo baraadigo subscribe tabanaya qabalkana furasuu ku soo gaaro muuqaal walba markii soo galna videogeena kana hana like gare oo si share gare asxaabtii helka kuna si share gare WhatsApp iyo Facebook si looga wada faa'iideysto muuqaalka xigeentan isugu ma doono nabaday wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh